Ilhaan Cumar ayaa saacado ka hor ku guuleystay wareegga koowaad ee codbixinta isreereebka uu xisbigeeda ku xulanayo musharaxa degmada shanaad ee kursiga ay hadda ku fadhido ku matalaya doorashada Koongareeska ee lagu wado inay dhacdo bisha November. Codbixinta xisbiga dimuqraadiga oo lagu sameeyay qaab email ah ayaa waxay socotay 9 maalmood ee ugu dambeysay. Cudurka corona ayaa hor istaagay in ergada xisbiga ay isu yimaadaan si ay u codeeyaan, taasi oo sababtay in qaabka emailka lagu codeeyo. Ilhaan ayaa tartanka kaga guuleysatay Anthony Melton oo ahaa nin madow ah isla markaana si weyn u dhaliilayay waxqabadkeeda intii ay xilka haysay. xildhibaanada aqalka Koongareeska Ilhaan Cumar ayaa heshay 65.5% codadkii la dhiibtay, halka Anthony Melton oo kaalinta labaad soo galay uu helay 30.9%. waxaa sidoo kale tartanka isreereebka xisbiga dimuqraadiga ku jirtay Leelo Shukri Aadan oo ah gabar Soomaaliyeed. Ilhaan Cumar oo 37 sano jir ah ayaa taariikh sameysay kadib markii ay noqotay qofkii ugu horeeyay oo Soomaaliya oo xildhibaan ka noqda dalka Mareykanka.